bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka xulka wararka saaxiibayaal qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya qarax xoogan oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho iyo faahfaahinna qaraxaasi ka soo baxaya mas-uul ka tirsan qaramada midoobay oo bogaaday arrin uu sameeyey muuse bixi haddaba arrintaasi maxay tahay warkan ayaad ku daawan doontaan goodax barre oo ugu fashilmay xakamaynta social mediaha iyo cabsi weyn oo laga qabo in mar kale dib qishka loo helo cabdi sabriye qarafaan oo xog cusub ka bixiyey go-aankii maamul goboleedyadu ay ka keeneen sharciga doorashooyinka habka uu maamulayo warkan ayaan idinkugu hayaa wax ka ogow cidda Kenya ku qalqaalinaysa inay badda Soomaaliya sheegato warkan ayaan idinkugu soo gudbinayaa dibaddana waxaan idinkaga hayaa madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump oo kulan la qaatay boqorka dalka Japan qodobadaas yaad daawo doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 27-ka bisha shanaad May 2019 saaxiibada aynu jecelnahay u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka faahfaahsan wararkii naga soo gaaraya agaarka xeebta liido ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku soo waramayaan halkaas uu ka dhacay qarax xoogan qaraxan ayaa waxa uu ahaa gaari lagu soo raray waxyaabaha qaraxan ayaa waxa la dhigay meel hotelka Panorama ee ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana hotelkaasi uu yahay mid aad u mashquul badan xilliga qaraxu dhacay ayaa dadka intooda badan waxay u fadhiyeen afur maadaama xilliga qaraxu dhacay ay ahaydeen markii salaada maghrib laga baxay wax yar kadib maalmihii la soo dhaafay magaalada muqdisho amnigeeda waxa uu ahaa mid faraha ka sii baxay waxaana magaalada muqdisho ku soo badanayay dilalka qorshaysan iyo qaraxada gawaarida lagu soo raro waxaana isbuuc ka hor magaalada muqdisho ka dhacay qarax aad u xoogan kaasoo ka dhashay khasaare saabay in saraakiil ciidan iyo xildhibaano ay waxyeello ka soo gaarto ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in amniga magaalada xaqiijiyeen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan walow amnigu haatan uu yahay mid aan hagaagsaneyn xogaanka labaad ee qaramada midoobay u qaabishan Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyay qodobo kamid ah qodbadii 18 May xuska maalintaasi uu ka jeediyay qodbadii halkaasi uu ka lahaa madaxweyne muuse bixi ayaa waxa uu qodbadiisa ku sheegay in Somaliland sii daynayso maxaabiista ay dagaalkii kaga qabsatay maamul goboleedka Puntland ku dhaxmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool waxa uu madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ka dalbaday in iyaguna ay sii deeyaan maxaabiista ka soo jeeda deegaanada maamulka Somaliland oo ay ku bedeshtaan maxaabiistan gacanta ugu jirta maamulka madaxweyne muuse bixi ayaa waxa uu fuliyay dalab ku jeeday maamulka Puntland isagoo 17 maxbuus oo kamid ah maxaabiista maamulka Puntland cafis madaxweyne ku sii daayay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa looga fadhaa inuu sii daayo maxaabiista ka soo jeeda deegaanada Somaliland oo ku jira jeelasha deegaanada maamulka Puntland ku yaala wasiirka waxbarashada hidaayada tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre ayaa waxa uu cadeeyay sababaha loo joojin waayay isticmaalka baraha bulshada maadaama dhawaan markii uu imtixaankii hore fashilmay uu sheegay in baraha bulshada isticmaalkooda la joojin doono inta lagu guda jiro 5 maalin oo socda imtixaanka dowladda Soomaaliya ay qaadayso wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashada iyo laamaha ammaanku ay awood buuxda u leeyihiin marka ay dareemaan cabsi in imtixaanka qishkiisa la helayo ay joojin karaan isticmaalka baraha bulshada hadalkani ka soo yeeray wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maantay 31 kun arday u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah oo markii labaad dowladda federaalka Soomaaliya qaadayso waxaana si toos ah maantay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya looga daafuray imtixaanka shahaadiga ee dowladda federaalka Soomaaliya sanadkan ay qaadayso walow Cabdilaahi Goodax Barre uu sheegay markii imtixaankii hore uu fashilmay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay xakameyn doonto isticmaalka internetka si ay shaarintaasina ay guuldareystay wasiirka arrintaas ka hadlaya waxa uu carab ku adkeeyay in mar walba ay dareemaan cabsi ah in imtixaanka uu baxayo ay awood u leeyihiin xakameynta iyo joojinta social media oo inta badan qishka liisuu kala gudbiyo cabdi maxamed sabriye qarafaan oo xog cusub ka bixiyay go-aankii maamul goboleedyada ay diideen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go-aankii wasaaradda ka soo saartay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada
oo inta badan maamul goboleedyada qaarkood ay ka hor yimaadeen. wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan oo la hadlay VOA ayaa waxa uu go'aanka la xiriira habraaca doorashooyinka uu ahaa mid si wada jira looga wada shaqayn jiray balse hadda shacabka loo soo bandhigay kaliya. waa tuma cidda Kenya ku qalqaalinaysa inay badda Soomaaliya ay sheegato. General Ismaaciil Maxamed Qaabil oo kamid ah saraakiisha ugu sareysa ee soo maray ciidanka Soomaaliya gaar ahaan biliiska iyo nabad sugidda ayaa maalmaha kamid ah waxa uu sheegay halkeysada ku hayso arinta muranka dhalisay ee soohdinta dhinaca badda ee u dhaxaysa wadamada Kenya iyo Soomaaliya. madax ka tirsan dowladda Norway waxa ay la kulantay sanadkii 1986 Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo safiir ama danjire ka ahaa wadamada Scandinavian ee Yurub, waxaana dabadeed ay ka gadeen ama ay ka iibiyeen in Soomaaliya ay u soo raraan shidaalka badda gunteeda hoose ku jira ee Soomaaliya leedahay. waa halka ay hadda ka socoto dacwadda ay isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa sanadihii la soo dhaafay u dhaxaysa muran xoogan kaas oo ka dhashay badda, waxaana dowladda Kenya ay sheeganaysaa badda Soomaaliya walow dowladda Soomaaliya ay dacwad karan ah arrintaas u gudbisay maxkamadda dambiyada adduunka ee Hague ama ICJ. haddii yeeshee dowladda dalkaasi Kenya ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya ku qalqaalinaysay waayihii dambe inay dacwadaasi ka soo laabto maxkamadda adduunka ayna wada hadal ama wada xaajood ka galaan. dowladda Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa maxkamadda Hague go'aanka ay gaari doonto cidda iska leh. hase yeeshee dowladda Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay cadaadis xooggan saaraysay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ku cadaadinaysa inay dacwadaasi isaga laabato ama dowladda Soomaaliya ay baddaasi u saxdo Kenya inay leedahay. halkaad naga daawanaysaan warbaahinta xulka wararka iminkana akhbaaradka caalamka. madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu kulan la qaatay boqorka dalka Japan. madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horeeyay ee la kulma boqorka dalka Japan. Trump intii booqashada 4 maalmood ku joogay Japan ayaa waxa uu salaamay boqorka iyo boqortooyada Masako oo ku booqday qasriga madaxtooyada ee Tokyo. hogaamiyaha Mareykanka ayaa waxa uu la qaadanaya boqorka Japan kulan oo ku sheegay inuu u yahay sharaf weyn. guud ahaan warka ka daawanayseen saaxiibayaal warbaahinta xulka wararka waa naga intaa. fadlan subscribe haddii aad ku cusubtahay warbaahinta xulka wararka.